Qaaradda Afrika waa qaaradda labaad ee ugu weyn qaaradaha caalamka kadib qaaradda Aasiya. Waa dhul ka mid ah dhulalkii ugu horreeyay ee uu aadamuhu degay. Dhul Alle Subxaanahu wa Tacaala uu ku manaystay nimcooyin aad u badan oo ay ugu horreeyaan kheyraadka dabiiciga ah noocyadiisa kala duwan: shidaal, gaas, dahab, bado lagu tilmaamo kuwa ugu bilicda suuban caalamka, kaymo, webiyo, dhul daaqsimeed, iyo duurjoog dhif iyo naadir tahay inaad qaarad kale ka hesho. Ayuu Alle ku galladay qaaraddan, halka geesta kale ku dhowaad 450 milyan oo ka mid ah dadka sabooliinta ah ee qaaradda Afrika, una dhigmo boqolkiiba 34 dadka qaaradda Afrika ku sugan ay yihiin xaalad lagu tilmaami karo saboolnimo, halka 30 milyan oo ka mid ah ay ka hooseeyaan dilinta saboolnimada oo ah in qofku maalinkii ku noolaado wax ka yar $2, halka 30 waddan ee ugu saboolsan caalamka 23 ka mid ah ay ku yaalaan Afrika, taasoo ka dhigaysa qaarad ku suntan faqri, gaajo, iyo tilmaan kasta oo ay leedahay saboolnimada. Haddaba, maxaa ku dhacay Afrika? Waa maxay si taalla sababta saboolnimadu uga jirto kadin kasta oo aad ka istaagto qaaradda? Se qaaraddani weligeed masaan bay ahayd? Si halkii ayay ka soo bilaabantay saboolnimadan la hadhay dadkii qaaraddan? Wixii ka horreeyay qarnigii 15aad, qaaradda Afrika waxaa ka jiray nolol ismaamul oo ka madax bannaan gacmo shisheeye, waxayna ahayd qaarad wax soo saarkeeda u iibgeysa bariga afarta jiho. Wax soo saarka beeraha, xoolaha, udugga iyo macdanta ayaa ahaa wax soo saarka ugu weyn ee laga helo qaaraddan. Dhulal badan waxaa ka jiray boqortooyooyin qadiimi ah, qaarkood ayaa ahaa kuwo dhaqaale ahaan iyo awoodba aad uga xoogganaa sida boqortooyooyinkii Ghana iyo Mali. Waxa kale oo xilligaas qaaradda bannaanka kooga yimaada ayaa ahaa ganacsatada u soo doonta badeecooyinka qaaraddan iyo sahamiyayaal reer Yurub ah oo magaalooyinka xeebaha lagu arki jiray. Haddaba bilowgii qarnigii 15aad, ganacsigii hore ee caadiga ah waxaa ku soo biiray ganacsi nooc cusub ah oo markii ay reer Yurub la wareegeen qaaradda Ameerika, waxay u baahdeen dad uga shaqeeya beeraha si ay wax soo saarkooda ugu dhoofiyaan Yurub. Waxayna safiirro u soo direen boqorradii qaaradda Afrika si ay ula galaan heshiisyo dhigaya inay ka iibsadaan dadyow Afrikaan ah, halka qorshahani ay aad uga riyaaqeen boqorradii qaaradda Afrika, kuwaasi oo bilaabay inay ku duulaan deegaanada ku dhow si ay uga soo qafaashaan una iibiyaan. Nidaamyada ayaa burburiyey boqortooyooyinkii yaryaraa ee tahli kari waayey inay isdifaacaan. Suuqyada ugu waaweyn ayaa noqday Mali, Ghana, iyo Nigeria. Ganacsatada reer Yurub ayaa aad uga faa'iiday qorshahan iyaga oo ka helay dhaqaale. Sidoo kale waxaa la joojiyey ganacsigii awrta ee qaaradda, iyaga oo ganacsatadii u wareegay kan. Sidoo kale, boqorradii Afrika ayaa dahab iyo hanti kale oo qaali ah ka helay dadkii ay addoon ahaan uga iibiyeen Yurubiyaanka. Dad u badnaa intii xoogga lahayd ayaa laga daabulay qaaradda. Arrintan ayaa keentay in wax soo saarku hoos u dhaco, dagaalada qabiiladuna ay aad u farabataan. Intii xoogga lahayd ee ka hadhay addoonsiga ayaa micin baday inay askar u noqdaan boqorrada si ay uga badbaadaan in la addoonsado ama iyaguba ay addoon iskoodu raadsadaan. Ficilkan ayaa keenay in la waayo wax beeraha tabcada. Sidoo kale, waxaa iyaguna ka qayb noqday addoomaha dadkii farsamo yaqaanka ah, oo kan farsamada leh waa ka qiimo sarreeyey ka aan aqoon waxba. Markii la mamnuucay ganacsigii addoomaha, waxaa dumay dhaqaalaha wadamo badan oo keliya ku tiirsanaa iibinta addoomaha, waxaana bilowday burbur ka yimaada boqortooyooyin badan oo ka dhisnaa ka ganacsiga addoonta. Haddaba, burburka ayaa barbilow u noqday baabaa dhaqaalaha qaaradda iyo saboolnimada. Markii uu bilowday kacaankii warshadaha, gaar ahaan qaaradda Yurub iyo Ameerika, waxay bilaabeen inay sameeyaan horumar baaxad leh iyo koboc dhaqaale. Se kacaankan qaaradda Afrika waxba kuma darsan oo waxaa meesha ka baxay dadkii farsamo yaqaanka ah iyo boqortooyooyinkii awoodda lahaa. Waxaa sidoo kale la waayey dhaqaalihii wax lagu samayn lahaa. Wax soo saarka beeraha ayaa sidoo kale hoos u dhacay, maadaama qaaradda dhexdeeda aad ugu baaheen dagaalada qabaa'ilka iyo saldanad raadinta ku dhisan. Dib u dhacan ku yimid qaaradda ayaa ka reebay adduunka intiisa kale oo uu ka socday horumar baaxad leh. Markii uu halkaas marayey, ayaa wadamada reer Yurub oon hore ugu soo dhiiran karin inay ku soo duulaan qaaraddan ayaa weysada u soo biyeystay. Markan damaca reer Yurub
kuma dhisnaysaa raadinta addoon iyo ganacsi, ee waxa uu ku dhisnaa raadinta iyo gurashada khayraadka dabiiciga ah. Boqorkii Biljamka ee Leopold ayaa noqday kii ugu horreeyay ee hindisa qorshahan, isaga oo qabsaday dalka ugu khayraadka badan qaaradda ee Congo. Waxaa xigay waddamadii kale ee Yurub oo iyaguna dhinacooda ka soo galay boobkan. Shirkii Berlin ayaana ay reer Yurub ku heshiiyeen qaybsashada qaaraddan, waxayna taas noqotay waa cusub oo u bariyay dadka qaaradda, iyada oo mugdi gelisay horumarkii qaaraddan. oo 100 sano oo ay joogeen reer Yurub, Afrika waxay dib u dhac aan laga soo waaqsan karin gelisay dadka qaaraddan oo awoodi waayay inay helaan nolol ay iyagu doorteen. Wax kasta oo khayraad ahaana waxaa rartay gumaysigii oo ka dhigtay sahay ay ku horumarsadaan dadkooda. Sanadihii u dhexeeyey 1945 ilaa 1975 waxaa meesha ka baxay gumaysigii tooska ah ee reer Yurub. Dadka qaaradda ayaa lahaa riyooyin iyaga oo naawilayay in haddii xukunku gacantooda ku soo laabto ay gaadhi doonaan halkii ay rabaan. Se waxaa isku soo hadhay shacabkii oon lahayn aqoon maamul, dadkii oo lakala dhex dhigay xuduudo baasiin ah iyo baaba'a. waxaa qaaradda iskaga dambeeyey kelitalisyo godmadow ku riday tiradii shacabka. waxaa dalalka qaaradda Afrika ayaa ku guuldaraystay inay kor u qaadaan aqoonta iyo wacyiga shacabka. Sidoo kale, qaaradda waxaa ku farayaraystay nooc kasta oo dib u dhac ah, waxaana ka dhashay shacab jeeb ahaan eber ah, garasho ahaanna kaba daran. intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkeenin. haddii uu muuqaalka ku aqliyo like saar, siina sheer gare.